ma tahay arday jaamacadeed oo dhigta kulliyadda ICT-ga amba doonaya inuu sanadkan galo ma u baahan tahay laptop tayadiisu sareyso oo ka anfacaya xagga waxbarashada ee kulliyadda ICT-ga haddaba waxaan ku haynaa 3 laptop oo tayo ahaan fiican qiimo ahaanna jaban waxaanay kala yihiin HP EliteBook X360 1030 generationkiisuna uu yahay 7th generation iyo sidoo kale HP EliteBook 830 generationkiisuna yahay 8 iyo nooc kale loo yaqaano HP EliteBook 820 generationkiisuna yahay 6 haddii aynu ka hadalno laptop loo yaqaano HP EliteBook 1030 7th generation wuxuu ka mid yahay laptop iska ugu tayada fiican ee xagga barashada ICT-ga kaasoo leh cabirka shaashadiisu 13.3 inch xagga resolutionkiisuna yahay 1920 1080 pixel laptopkan waxa uu leeyahay maskaxa 512 GB solid state drive sidoo kale loo yaqaano SSD RAM-kiisuna yahay 16 GB waxa ku jira chipka jiilka 7 ay shirkadda Intel soo saarto kana ah Core i5 laptopka xiga waxa uu noqonayaa HP EliteBook 830 8th generation cabirka laptopkani waxa uu la mid yahay kii aan hore soo sheegnay ee ahaa 13.3 inch resolution ahaan waxa uu noqonayaa 1920 1080 pixel laptopka hore waxa uu ka duwan yahay laptopka hore waxa uu lahaa touch laakiinse laptopkan touch ma laha balse featureska wadaagan ayaa ah labada laptop waxay leeyihiin 512 GB oo SSD ah iyo 16 GB oo RAM ah haddaba chipka ama processorka ku jira waxa uu yahay jiilkii 8aad ee shirkadda Intel soo saarto kana ah Core i5 laptopka ugu dambeeya waxa uu yahay HP EliteBook 820 6th generation haddii aynu laptopkan waxa uu leeyahay 512 GB oo SSD ah amba 1 TB HDD RAM-kiisuna waxa uu yahay 8 GB RAM chipka amba processorka ku jira waxa uu yahay jiilkii 6aad ay shirkadda Intel soo saarto kana ah Core i7